wardegdega dagaal culus ayaa ka socda degmada Balanballe ee gobolka Galgaduud kaas oo u dhaxeeya ciidamada beeleedka degmada Balanballe iyo sidoo kale ciidamada nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee ilaalada u ahaa taliyamaha Salaad oo isagu socdaal ku marayay degmada Balanballe isla markaana ka baxay degmada Cabudwaaq ee gobolka Galgaduud waxaan kula wadaagi doonaa wararkii ugu dambeeyay dagaalka halkaasi ka soconayay sidoo kale ilaa hadda qasaaraha laga diiwaan galiyay dagaalkaasi soo dhawow muuqaalka like saar aragtidaada qaybta faalada ee commentiga ku dhibo haddii aad horey nula joogtood ku maasantahay haddii aad nala joogina nagu soo biiro ka mid noqo saaxiibada aynu markasta halkan kula wadaagno wararkii warbixinada guud ahaan Soomaalida iyo soo kale caalamka hagaaga wararka naga soo gaaraya degmada Balanballe ee gobolka Galgaduud ayaa ku waramaya in saaka dagaal uu halkaasi ka qarxay kaas oo u dhaxeeya ciidamada beeleedka ku sugan degmada Balanballe iyo sidoo kale ciidamada ilaala u ahaa taliyaha nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya Mahad Maxamed Salaad oo isagu maalinimadii shalay ahayd gaaray degmada Cabudwaaq isla markaana uga sii gudbay maanta degmada Balanballe ee gobolka Galgaduud socdaalka taliyamaha Salaad ayaa waxa uu jeedkiisa ahaa kurgalida xaaladaha amni iyo sidoo kale habsami u socodka arrimaha doorashooyinka laakiin safarka taliyamaha Salaad ayaa waxa gabi ahaanba si weyn u diidanaa shacabka iyo sidoo kale ciidamada beeleedka degmada Balanballe kuwaas oo iyagu sheegay inuusan marnaba iman karin degmada Balanballe taliyaha nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka waxaa magaalada Balanballe dhammaan wadooyinka soo galay iyo kuwa markaasi bartamaha magaalada lagu jaray gaadiid ciidan oo ay lahaayeen maleeshiyaadka degmada Balanballe waxaana ay sheegeen inaysan marnaba ogolaan doonin inay soo galaan Mahad Salaad iyo sidoo kale ciidamada ilaalada u ah ee galbinaya laakiin taliyamaha Salaad ayaa ku adkaystay inuu tago degmada Balanballe waxaana la soo warinayaa in markii uu gaaray degmada Balanballe uu halkaasi ka qarxay dagaal u dhaxeeya ciidamada beeleedkii halkaasi ku sugnaa iyo sidoo kale ilaalada taliyaha waxaana la soo warinayaa in dagaalka ilaa hadda uu soconayo iyadoo ciidan beeleedka ay diidan yihiin in gudaha ay galaan ciidamada ilaalada u ah Mahad Salaad iyo sidoo kale wafdiga kale ee la socda waxaana dagaalka uu ka socdaa banaanka magaalada Balanballe kaas oo sababay khasaare kala duwan dhinacyada ayaa adeegsanaya hub aad u culus iyada oo lagu soo waramayo in ciidan beeleedka Balanballe ay sheegeen inay marnaba ogolaan doonin in Mahad Salaad uu gudaha u galo degmada Balanballe maadaama ay ku eedeeyeen inuu qayb ka ahaa dagaal beeleedyo horey uga dhacay halkaasi sidoo kalena maleeshiyaad duulaan ku ahaa degmada Balanballe uu dhowr jeer taageero markaasi siiyay guud ahaan wixii ka soo kordha dagaalka ka soconaya Balanballe wararkii warbixinadeena dambe ayaad ku daawan doontaa muuqaalka like saar aragtidaada qaybta faalada ee commentiga ku dhiib haddii aad horey nula joogtayna waad ku maasantahay haddii aad nala joogina nagu soo biir oo ka mid noqo saaxiibada halkan ku xiran